dadka kuma deeqi kartaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam hantidiina iyo xoolihiina dadka kuma deeqi kartaan walaakiin waxaad ku deeqaysaan dadka bashaashnimo iyo waji furfurnaan buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wajigaan waxaad ku qabato hantidaadi ma ku qabato ikhwaan soo dhaweynta aad bay u wanaagsan tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yiri innakum lan tas'u an-nasa bi amwalikum ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق وجهك أفر دبعد مع سوجي ولا الكاجي وايو إلهي سبحانه وتعالى جعلي هاي دتك مركاسي دتك آتك أقولو أو سهل كأه أو آتك مركاسي ودمرين تبدن أيو الله سبحانه وتعالى وجعلي هاي دمرنته يوجي فرفرنانتا نوحو إلهي كبحيو وحكوين كلون لو غاري ماله رسولك عليه الصلاه والسلام ويري ان الله رفيق يحب الرفق الهي ومركاسي مد دمرين بدن وددك او دمريا وحنا aad u jecel yahay dhamrinta ay u jecel yahay Allah subhanahu wa ta'ala adeega iyo maxay ahaatay dadka ka kala carara iyo wajigaagiyo doorsoon iyo wax walba xumaan markii la maqla isla markii adiga lagu soo xusuusanayo iyo Allah subhanahu wa ta'ala ma jecla wa yu'di 'ala ar-rifqi ma la yu'di 'ala al-hunth bi rasuulka alayhi salatu wasalam Ilaahi subhanahu wa ta'ala dhimrinta waxa uu ku bixiyaa kuma bixiyaa adeeg shay hadii aad adeeg ku goobto waraagiisa iyo macaankiisa ma gaaraysid waxa loo baahan yahay inaad ka mid noqoto kuwa Ilaahi subhanahu wa ta'ala dhimrintoodii wajigoodii furfuran soo jiidashadoodii oo Allah subhanahu wa ta'ala naarta aga xoreeyay inuu kugu daro rasuulka maalin wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ala ukhbirukum biman yahrumu 'ala an-nar ma idin kaga warama ma idin akhbaara ko ilaahay naarta ka xarimay oo biman tahrumu 'alayhi an-nar buu yiri ama naarta laga xarimayba ala kulli qaribin hayyin sahlin wa rasuulka sallallahu alayhi wasallam mid walbo dadka u dhow jilicsan dadkana u fudud hadii aad yaani magaciisa la soo qaado ama ay maqlaan durbaba wax xusuusanayaan sidoo dadka u karaameeyay dadka u soo dhaweeyay laakiin qof markii magaciisa la maqlo subhanallah anugu soo qaadin la dhahay hadaad noqoto ugu waxaad noqotay umada kuwa ugu sharta badan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryeynaa inuu nagu arzuqo dabeecada wanaagsan iyo waji furnaanta waayo rasuulka alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa wajiga walaalkaagi aad u furfurto aad u dhoola cadayso sadaqada ay kamid tahay yiri alayhi salatu wasalaam yaa heli kara qofki ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaag la doonay ayaa markaasi heli kara rasuulka ayaa maalin wuxuu markaasi ka sheekay jannada waxa ku yaalo yiri qol oo hadii dhabarka dambe aad ka soo fiiriso caloosheedii dambe aad arkayso dhinaca caloosha hadii aad ka soo fiirisana dhabarkeedii baad arkaysaa nin reer baadiya istaagay markaas wuxuu ku yiri liman hiya ya rasuulallah yay usugnaatay rasuulka ilaahay rasuulka wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam liman ataba al-kalam ninki hadalka wanaajiya wa ad'ama at-ta'am oo dadkana cuntada qoodiya cuntada inta ka badato albaabiyada hortooda kuma daadiyaan god qashin inta u qodaan kuma shuwaan waxay markaasi ay siiyaan walaalahoodii muslimiinta ah waliba cuntada marka ayaga ay jecel yihiin ay aadkana u wanaagsan tahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ninka hadalka wanaajiya cuntadana dadka qoodiya wa adama as-siyam soomkana daa'ima oo mid waajibka intuu guto hadana sunnaha raacsiya ay rasuulka yiri alayhi salatu wasalaam wa salla bil-layl wan-nasu niyam habeenkina dukada markay dadka ay hurdayaan sida ay rasuulka alayhi salatu wasalaam annaga wadan waan jecelnahay rahmada Allah jannada Allah laakiin waxa la isku dhaafay dabeecadaha wanaagsan ayaa la isku dhaafay dabeecadaha wanaagsan iyo waxa la isku dhaafay bashaashnimada rasuulka alayhi salatu wasalaam khayr ma jiro illa umadu tusiyay shar ma jirto illa umada waa aagidigay wala leeyahan aadka u jecelahay waxaan markaasi jecelaystay in markaasi aan isku qaabilno
bashaashnimo weji furfurnaan si ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmadiisa aan u helno